Soo dhawaada saaxiibayaal, halkani waa Hareri Media oo badanaa ka daawataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee na soo booqato, fadlan na soo raac, hana hilmaamin in aad muuqaalkan meel dheer gaarsiiso. Aynu ku bilowna wararka ka soo baxaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan militariga Itoobiya ay gaadheen gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow, sida uu saxaafadda u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda federaalka Cabdullaahi Shimir oo la hadlay saxaafadda. Mas'uuliyiintan ka socda militariga Itoobiya ayaa degmada Doolow kula kulmay madax dhaqameedka gobolka Gedo, ayagoo u gudbiyay fariin ay ka sideen dowladda federaalka Itoobiya oo ah in muddo 3 beri ah ay uga baxaan guud ahaanba gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Ciidanka uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan oo hoostaga dowladda federaalka, kuwaas oo usbuucii hore gacan ku haynta degmadaasi la wareegay. Sidoo kale wararka aynu ka helayno gobolka ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay ciidamo aad u tiro badan soo dhoobtay xuduudka ay la wadaagto gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow, iyadoo wararkii ugu dambeeyay gobolka laga helayana ay sheegayaan in galabta la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kacay militariga Itoobiya oo dul heehaabaya xarunta UK oo ah taliska ay ciidamada Janan u hogaaminaya ay ku leeyihiin duleedka Balad Xaawo. Ilaa iyo hadda war rasmi ah dowladda Itoobiya kama ayna soo saarin eedaynta loo jeedinayo ah in ay gobolka Gedo faragelin ku hayso. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo caawa arrinta gobolka Gedo ka hadashay ayaa si weyn u dhaleeshay oo u hanjabtay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, kaasoo sheegtay in uu u shaqeeyo shisheeye oo soo jaajuusayo ciidamada qaranka. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Itoobiya ay dooneysay in ay sii xoojiso joogitaankeeda iyo saameynta ay ku leedahay gobolka Gedo oo ay u aragtay inuu muhiim u yahay amnigeeda qaranka. Isbuucyo ka hor, madaxweynaha Soomaaliya oo booqday dalka Masar ayaa kala hadlay dowladda dalkaasi in uu geeyo ciidamo ka socda mas'aarida gobolka Gedo si ay nabad ilaalinta Midowga Afrika uga qayb qaataan, taasoo Itoobiya ay u aragto halis ku wajahan qarankeeda, maadaama dowladaha Masar iyo Itoobiya ay dhexdooda ka taagan tahay xurguf weyn oo ku saabsan biyo-xidheenka Itoobiya ay ka dhistay webiga Niil.